kulan ay soo agaasimeen boqortooyada reer imaam ee beesha Abgaal Cismaan ayaa maanta lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Kulanka waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee balweynta Abgaal. Ujeedada kulanka ayaa ahayd 9 sano kadib geeridii ku timid Imaam Maxamuud Imaam. Dhaxal sugayaasha boqortooyada reer Imaan ayaa xilligan la sheegay inay diyaar u yihiin inay duubtaan imaamka beesha Abgaal. kulanka ay goobjoog ka ahaayeen dhammaan odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada siyaasiyiinta beesha ayaa lagu go'aamiyay in maanta kadib Maxamed Yuusuf shaqadii ku simanimada ahayd ee gacanyarii hore Imaam Maxamuud laga joojiyay shaqadii iyo matalaadii beesha. Sheekh Yaasiin Imaam iyo Daahir Imaam Maxamuud ayaana sidaas sheegaya. waxaan rabnaa inaan ka hadalno Abgaal Cismaan wuxuu imaam lahay muddo 9 sanadood sagaalkaas sano Abgaal oo imaam lahay waxaa waaye duurka uu kala galay waa kala irdoobay lamadiis jeclaada isma jecla annaga ka reer imaam ahaan waxaan yani duurkaas ammaano nugu yahay Abgaal Cismaan uu ammaano nugu yahay duurka wuxuu waaye Abgaal Cismaan in la isu keeno wanaagga laga shaqeeyo maahan ma ahayn in lagu kala geeyo dad lagu dulmiyo dad loo yani sidbuusu loo sameeyo. kulanka marka uu soo gabagabow kadib waxaa si wada jir ah loogu dhawaaqay in la gudagali doono dubista imaamka Abgaal iyadoo loogu baaqay qurba joogta beesha iyo ganacsatada siyaasiyiinta dhalinyarada in si wada jir ay ugu soo qayb galaan dubistaasi. qaar ka mid ah waxgaradka kulanka qayb gala ayaana soo dhaweeyay arrintaas. 20 ama 15 ina imaan habar ka bilow Imaam Maxamuud ka bilow ilaa 15 imaam nambari kili ka soo dhacay ninka soo dhacay ma ka xaqaysan ninka soo dhacay ma ka ilaa diin maale inuu ninka la yad maqlaysin kaamil arabna imaanka kaamilka waa midka qabiilka u duceeyo waay markay isqabtaan inta xaajada gala yiraan ninka ka duceeyo waay cida gardara ninka yiraa waay ma ku habaara ma soo qaadana wax lagu yiraa wakaas xaaj xuseen jilacow marka u dambaysa dadku gudiga ka dhiga Imaam Maxamuud aan ku jirnay oo dekadaas iyo markii la heesaystay aan ku wada jirnay asi warqadiisa hadda jeebkayga ku jirtaa in badan aan dhibaato badan la kulannay oo imaan la imaanka hadda lagu dhaqmay oo la tilmaamay armaan in waxa ay isigaarsi alaabta wala alaabtida la kumaad alaabta isigaarsi dadintira alaabtiisa hadana ku aadada tabar badan malaya. ugu dambeyntiin waxay beeshu soo saartay war murtiyeed dhowr qodob ka koobnaa. marka guddi 15 ah oo beeshan laga qabtay dhexdooda iyagu soo xuleen ayaa hawshaas u qumaaya laga bilaabo saacadan hawshaas guddigaas loo xil saaray guddigaasana qabanaya. waxaan rabnaa marka dal iyo dibadda dadka jooga inay la shaqeeyaan inay u soo duceeyaan cala aqal inay ogaadaan barnaamijku inuu barnaamij saas yahay oo hawshii loo istaagay. waxaan dhihi lahaa marka reerkaani maanta wuxuu gaaray natiijo weyn iyo guul weyn iyo wax dhowr sano laga tilaabsan waayay ayuu maanta kaliya ka tilaabsaday. Mahad Mutawakkil, Honkebel TV, Muqdisho. magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo. warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel shirkadda dadweynaha